diin ku dhaqan gudaha dalka Mareykanka ayaa mar labaad ay u suurto gashay inuu socdo kadib markii loo sameeyay taayiro ku socon karo oo markii hore lugaha dambe uu ka curyaamay. Sandra Taylor oo ah milkiilaha diinkan Pedro ayaa goostay in isbitaalka xoolaha ay geyso oo ku yaala gudaha jaamacadda Louisiana State University kadib markii uu diinku waayay lug labaad oo ka go'day xilli uu ku sugnaa beerta. maamulaha kulliyadda caafimaadka xoolaha ee jaamacadda Janjar Jordan ayaa sheegtay in markii loo keenay diinka uu laba lugood u lahaa dhaqaatiirtu waxay yaqaaneen waxa ay sameyn doonaan waxaana u sameeyeen taayiro anagoo adeegsanayna gobol liigo ah oo shabaha lugaha gawaadhida lagu sameeyo kuwa ay ciyaalku ku ciyaaraan. fikradii ay dhaqaatiirtu qaateen waa ay guuleysatay oo diinkii waxa uu noqday kan ugu socodka badan maadaama uu helay taayiro uu ku socon karo oo uu kaashado. Jontor waxay tiri arintan waxaan ka eegaynaa xagal ka duwan dhanka ay dadku wax ka eegayaan waxa dhici karta bukaanka xayawaankan naloo keeno inuu miisaankiisu yahay 2 gram ama wax ka badan mar walba waxaan diyaarinaa qalabka ku haboon ee xaaladiisa lagu baxnaanin karo. Dhaqana Cumar